meesha waxay ugu dambeysay 11 sano ka hor habeenkii ugu dambeysay boosaaso meesha ka tahriibo waa meeshan aan ku faraxsanahay maanta inaan joogo 11 sano ka hor aa meeshaas ka tahriibtay 11 sano kadib aa ku soo laabatay noloshaada maxaa iska bedelay meesha aad joogtidna maxaa iska bedelay noloshaada caqli ahaan jeeb ahaan aqoon ahaan maxaa iska bedelay meesha ka imaatay oo aa ogeed aa ka tahriibtay sideedii u egtahay adiga oo kaliya is soo bedelay laakiin caqli ahaan jeeb ahaan aqoon ahaan isma aadan soo bedeline waxa iska bedeshay oo kaliya ah qaabka u labisan jirtay muu maleynayay markii aad joogtay waqtigii horeeto 11 sano ka hor inaasan u labisan jirtay dadkii waxa u keentay oo kaliya dhaqan xumadii iyo in la isqaawiyo iyo dhar caadi in la gashto oo macnaha dhar oo qaawan oo garbahaaga email bay qaawan yihiin in la gashto ina caadi gabdhaha kale ay kugu daydaan oo kaliya u keentay markaas waxa u hadlaysaa si cunigiiso mataqaana hadda dhashto kale mareera joognaa maanta qofka bil aadanka markuu nafsidiisa soo haligo badweynta soo maro bad kala soo maro imaado Yurub imaado kaam iska dhiibo nolosha adag hirdankeeda mataqaana wajaho kadib mataqaana sharci la siiyo waxa hadii uu yahay qof mataqaana aqli u saaxiib ah waxa uu bartaa macnaha wixii ka dhinaa hadii uu isleeyahay inuu lacag ka maqan lacag oo shaqeysana haduu isleeyahay inuu mataqaana waxa ka aqoona ka maqan aqoontu raasana maanta afar adduunyaalo oo aqrashanayso maanta hal wax oo meesha ka imaatay 11 sano kadib ku laabatay macnaha ma isheey kartaa oo aan ahayn dhaqan xumo inaa geysid maanta adiga heerka aa gaartay oo ah in 2 milyan 3 milyan ay kugu xirnaadaan inaa gaartid dad fara badan oo waxa jooga Soomaaliya oo wiligood nafsadooda aan risk soo gelin lacaga fara badan soo galaan xayisiina sameeyaan wiligood aan mataqaan dhaqan xumo iyo fasahaad iyo fiqsi ana mataqaan dadka aan u soo bandhigin oo dadka u keenin ya maantana la yaqaan caana maanta adiga waa soo tahriibtay noloshaada soo risk soo gelisay qurbaha imaatay 11 sano kadib oo ku laabatay macnaha dadka oo joogay wadanka 11 sano iyo adiga waxa kala duwantii malaha dhan aqoon hadii ahaan leed dhan jeeb hadii ahaan leed dhan mataqaana isheeg nolol kala hadii ahaan leed waxa waa u simantiin waxa laga yaabaa qofkii oo 11 sano mees joogay inuu mataqaana ka oo kana loo fiican yahay muuqaalkan dad fara badan waxay u maleyn doonaan inuu yahay personal attack aniga igama ahan macnaha personal attack qofkan aqoon isku malihin laakiin qof walba oo social media ku jiro kor unba mataqaan la iska yaqaana qof walbana wuxuu yahay meeshan laga sheegaya marka waa idin salaamaya muuqaalka meel dheer si gaarsiiyo wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh